محن هلاوي الدوغلي محن كموري محن كوبسو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومركل أي صار نقد ونعكس صاحب بيال برنامج كان مانتي دين ودنا برنامج حيصله أنا قلت لك الله برشة الصوماليات دليرة الصوماليات إنك كيف يديستان برنامج كان صومان ترى نقول بلابي دونه أنا جاي صاحبك عبد الرحمن حرقه وقال كانوا فردينا برنامج كان ويان كوجولي صوت الحيس وين كوجولي صوت الحيس برنامج كان صار نقد دونه تحنا قيبك للدوانا يلان دونه قيبتي وجوه رئيسي بينه ما أنت ده فري دونه waxaan leeyahay de gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawaada channelkiina haya Cabdiraxmaan Axmed oo aad bad mahadsan tahay ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay maanta in aan barnaamijka bilaabano insha Allah waxa kale oo diyaar u nahay tartanka inaan noqono anaga Axmed Daawud tartamayaashii ugu horeeyay ka qayb qaata marka waxaan rajeynayaa maanta aniga ahaan hadii aan iska hadlo insha Allah taala inaan ku guuleysan doonayaan rajeynayaa insha Allah inta kadib channel kan laga daawanaysan waxa weeyaan Axmed Daawud channel fadlan hadii ay tahay markii ugu horeysay subscribe noo saar muuqaalkana like gareys dad badan u gaadhay insha Allah la soco adigana daawanaya waxa kamid noqon doontaa dadka dalxiiskan inuu wanday ka qayb geli doono insha Allah marka soo dhawaada sheek xayawaanka aan awoodin inuu u soo bixiyo carabka banaanka waxaan sheegaa xayawaanka aan awoodin inuu u soo bixiyo carabka banaanka carabkiisa banaanka banaanka xayawaanka aan awoodin yaxaaska waa sax su'aasha waxaa iskala Cabdiraxmaan صح sheek xayawaanka aan awoodin inuu samada eego xayawaanka aan awoodin inuu xagga sare eego su'aasha jawaabteeda hadaan isku dayo waxa weeyaan doofaarka waa sax su'aashan kale waxaa iskala Axmed imisa sano ayuu noolaan karaa xayawaanka geela imisa sano ayuu noolaan karaa geelu imisa sano ayuu noolaan karaa sagaashan sano waa qalad ka dhacay hadii aan su'aasha jawaabteeda isku dayo geelu waxa uu noolaan karaa 25 sano waa sax su'aashaadi aye imisa sano ayuu noolaan karaa xayawaanka faraska xayawaanka farasku waxa uu noolaan karaa waxa uu noolaan karaa 35 sano waa sax imisa sano ayuu noolaan karaa xayawaanka maroodiga maroodi bay maraysaa runtii xayawaanka maroodigu waxaan filayaa inuu geela uun kulley ku dhadhow yahay intaan qiyaaso marka waxaan odhan karaa 70 sano waa sax waxaa sheegtaa cunnada aan isbedelin muddo dheer cunnada aan isbedelin muddo dheer horta wax la cabaa haday noqoto biyaha lahayd waxa weeye malabka waa sax maskaxda dhammaad soo marinaysaa xaraya kan waxaa iskale Axmed waxay leedahay waa gabay yaa tiriyay gabaygan kol haddaan ka gabiyey go'aygana ka qaatay maxaa iga gadhisha ayaa tiriyay gabayga kol haddaan ka gamay kol haddaan ka gabiyey go'aygana ka qaatay maxaa iga gadhisha gabayga waxaa tiriyay Salaan Carabi waa qalad ka faa'iideysa waxaa tiriyay Hadraawi waa qalad yo waxa ku yarcishtaa ku cilay waxaa tiriyay والله ويقول iska dhiib ma dhib male wala inoo faa'iidina gabaygii ahaa soo maaha weliba dee maxay marka la soo wada iglan baa gubanaysa maxaa ga gadhish gudaha ceelka Hargeysa geeso ma dhaafin ما حسست لكني والله بوين كيه لكن قوي ما حسست adiga iska jooji أنا على واي waxaa sheegtaa caasimada dalka كندا عاصمة دلك كندا وآد بس كيف تطلع صوتها دين بدل ما كهم وترنتو
صح وسؤاشي تضبط شكتا قال مدحدا gobolka awdal magaala madaxda gobolka awdal ayaan maxaa ku sheegaa Soomaaliya daawadayaashaba aad bay runtii u fududahay laakiin waa dalkeenii waa Boorama ku soco su'aasha waxaa iska leh Cabdiraxmaan waa tii sideedaad waxaa ku jawaabtaa su'aashan waxay leedahay sida tan goorma ayuu geeriyooday Abu Hadraawi Hadraawi sanadkii uu geeriyooday wuxuu geeriyooday 2021 qalad 2022 صح 22 baan u jeeday ka faa'iideystay oo su'aashan adag su'aashii sagaalaad 22 Axmed waxaa ka jawaabtaa su'aashan Allah naxariis waxaa ka jawaabtaa imisa ayuu geela qatanaan karaa oo biyo la'aan ahaan karaa inta bilood ee uu geelu qatanaan karo Soomaa waxa uu qatanaan karaa 12 bilood waa sax waa su'aashii tobnaad ugu dambeysay waxaa sheegtaa goorma ay Soomaaliya xornimada qaadatay Soomaaliya waxay qaatay 1960kii 26 June